السلام عليكم أحبابي. mid ka mid ah mawaadiicda muhiimka ah ee caalamku aad uga hadlo waxna laga qoro inaguna aad inoogu yartahay runtii nolosheenana saameyn weyn ku leh waa mawduuca la yidhaahdo nafla hadalka self talk qofku siduu naftiisa ula hadlo ma ogtahay in inta aan nafteena la hadalno ay ka badan tahay inta aan dadka kale la hadalno hal yaaba inay kugu cusubtahay horadan u maqal nafteena waxaan la hadalnaa in ka badan inta aan dadka kale la hadalno waxaa la tilmaamaa in dadka markaan la hadla inaan adeegsano erayo u dhexeeya 7,000 ilaa iyo 20,000 oo eray halka nafteena markaan la hadla inaan adeegsano erayo u dhexeeya 7,000 ilaa iyo 60,000 oo eray bimacnaa way ku laba jibaarmaysaa ama ku saddex jibaarmaysaa inta aan nafteena la hadalno marka loo barbardhigo dadka kale inta aan la hadalno nafla hadalkaas haddaba waa laba nooc qayb positive ah oo ina dhiirigelisa xamaasad ina gelisa yididiile ina gelisa iyo qayb negative ah oo taban oo very critical ah naqdin iyo dhaliil inaad naftaada dhaliil fara badan naqdi fara badan soo jeediso inaad naf duudsi iyo naf shaki iyo doubts xambaarsan iyo baqdimo dabar ku noqda inaan hor socod sameyn weyno ka baqno isku dayga iyo maaragtay hor socodka sida dadka kale marka aan la hadalno erayadeenu ay yihiin erayo positive ah oo dhiirigelinaya oo xamaasad gelinaya oo dhaqaajin karaya oo maaragtay baritaali karaya sidoo kale ay u jiraan erayo negative ah oo dadka kale maaragtay markaan ku nidhaahno saameyn ku leh taban oo niyad ku keeni karaya hagaasin karaya dadka laakiin the thing waxa weeye erayada dadka markaan eray negative dadkaan ku leenahay waxa jirta qayb filter garan karaysa oo isa ka celin karaysa oo ka fikiri karaysa erayadan aad ku leedahay waxa ka runaya waxa ka beenta laakiin khatartu halkay daaranta waxa weeye nafteena erayadan aan ku leenahay oo runtii daraasaadku ay tilmaamayaan erayada u dhaxeeya 7,000 ilaa 60,000 boqolkii 80 waa negative inaga soo raacay yaraanteedii tan iyo maalinkii aan dhalanay ilaa maanta wixii duruuf aan soo marnay wixii dad aan la soo kulannay wixii dugsiyo aan soo marnay wixii xaalado adag ama fudud mid ay noqotaba aan soo marnay intii eray ee negative ee taban ee laynagu soo yiri oo record garaysmay oo inoo kaytan oo weliba marar fara badan ay u badan tahay 10kii sano ee nolosheena ugu horreysay maadaama ilmuhu uu yahay xilligaa iyada cajalad wax duubaysa kaliya uu yahay aan iska filter gareey karinin erayada negative-ka lagu odhanayo erayada haddaba negative-ka ee taban saameyn ee boqolkii 80-ka ah saameyn weyn bay nafteena ku leeyihiin waxay saameyn ku leeyihiin self image-keena sawirkeena wayna isku haysano hadday noqoto awoodahaaga hadday noqoto muuqaalkaaga hadday noqoto caqligaaga hadday noqoto qaab hadalkaaga hadday noqoto shakligaaga iyo samaysankaaga ilaahay siduu kuu sameeyey waxay saameyn ku leedahay emotionskaaga iyo laxawiyadaada oo marar fara badan ay keenaysaa waxyaabaha indhaha qofku waan caajisaysanahay waan daalanahay waan qofku indhaha isku qabanayo tamar la'aanta u dareemayo saameyn bay ku leedahay waxay saameyn ku leedahay behaviorkaaga marka ay noqoto go'aamada aad gaarayso saameyn bay ku leedahay yani erayada negative kan isku hadlayno go'aamada aan gaarino maalinkii waxaan gaarnaa ku dhawaad 3,000 ilaa iyo 32,000 oo go'aan bay daraasaadku tilmaamaan ya go'aamada aad gaarayso saameyn bay ku leedahay waxay saameyn ku leedahay performance-kaaga iyo waxqabadkaaga iyo dhaqaaqaaga iyo wax soo saarkaaga waxay saameyn ku leedahay adkaysigaaga sad u dhabar adag nolosha caqabaday leedahay markaad wax qabato markaad wax u dhaqaaqdo sidaad u give up garaynayso iyo sidaad u sii adkaysanayso dhabar adaygaad ula imanayso iyo maaragtay resilience saameyn bay ku leedahay waxay saameyn ku leedahay kalsoonidaada iyo sidaad awoodaada u aragto intaasoo dhanba saameyn bay ku leedahay su-aasha marka haddaba aan isweydiin karin waxa weye nala muhiimna inaan isweydiino sidee buu qofku isaga maareyn karaya negative thoughtskaas waa su-aal runtii muhiima mar baan insha allah muuqaal fiican ka diyaarin doonaa laakiin dhowr qodob oo runtii muhiima degdegaan tilmaamo ta koowaad waxa weeye self awareness qofku inuu naf ogaali yeesho iska warqab muraaqabatu nafs qofku inuu naftiisa ka warqabo oo weliba thoughtskiisa iyo fikradahan kusoo dhacaya uu ogaal u yeesho boqolkii 80-ka negative-ka ama 7 ilaa 60,000 eray ee aan nafteena kula hadalno ee subconscious-ka in badan oo ka mid ah ee codad inta badan wuxuu ku yimaadaa muuqaalo kala duwan iyo sawiro kala duwan buu soo qaataa
waxyaabaha la tilmaamo waxaa ka mid ah daraasadu tilmaamaan in marar fara badan uu soo qaato codad fikrad weeye fikraddan waxay rabtaa inay cod yeelato codadka marar qaarkood ay soo qaadanayso waa codad aad taqaano waxay mimigaraysaa baa la yidhaahdaa yaraantaadii macalinkaagii dugsiga waalidkaagii saaxiibadaadii ereye negative ay kugu lahaayeen hadda ayna kasoo sheekeynayni ayuu cod aad taqaanid buu soo qaadanayaa markaasuu leeyahy waxaan ma samayn karaysa waana cod aad taqaano waxa inta badan samaynayna waa shaydaanka alladii yuwaswisu fii suduuri innaas ilahi subxana wataala meelo fara badan qur-aanka inoogu tilmaamay inuu waswasa fara badan uu sameynayo wuu yaqaan aqoon buu inuu leeyahay shaydaanku qariinka qof walba qariin buu leeyahay oo maalinka uu dhashay saameyn ku leh ilaa marka laga tago waxaan u malaynayaa nabillaahi ciisa iyo maryama binti cimraan marka laga tago qof kasta qariin buu lahaa oo shaydaana oo cilaaqa la leh oo la socda oo waxaa la odhan karayaa cajalad rikoord garaynaysa wax kastoo dhacdooyinkaagii kugu hareeraysan wuu kula socdaa haddii uu saameyn iyo shahaadiinta kugu hareeraysan saameyn waxay kugu yeelan karayaan inay ku maqashiiyaan codad aad aamini karayso ilan markaad fikrad khaldanba qofku naftiisa u sheegayo oo ay kusoo noqnoqonayso niri 80% waxaan nafteena kula hadalno waa negative wuxuu rabaa inuu soo qaato cod uu yaqaano oo adigu aad taqaana ay dhahde si wixii ay kuula muuqato wax run ah deetana aad u aaminto deetana ay saameyn kugu yeelato idan marka inaad ogaalaan u yeelano fikradaha negative-ka ee soo noqon karaya quruxda meesha ku jirta waxa weeye fikradahani rewiring baa lagu samayn karaya waxana waa habits 95% waa fikrado soo noqonaya wax cusub ma ah waa waxaad haysid quruxda marka waxa ku jirta waxa weeye ama halka rajada leh inay gelinayso waxa weeye rewiring baad ku samayn karaysaa mid kamid ah waxyaabaha 30 sano ugu dambeysay la helay bini'aadamka ogaaday maskaxda bini'aadamka lagu ogaaday waxa weeye in maskaxdeena neuroplasticity wax la yiraahdo jirto oo maskaxdeena adigu aad wire garan karayso ereyada aad u sheegto ay rumaysanayso adigu aad ereyga negative-ka aad ka horkeeni karayso erey kale oo positive ah marka rewiring aan ku sameeyay maadaama aan baranay oo maskaxdeena baratay tan kalena way baran karaysaa inaan tan kale aan u sheego laakiin haddii aanad ogaal u lahayd thoughtska oo aadan fikradaha kugu soo dhacaya aadan u fiirsan de ma awoodi karaysid inaad maxaa la odhan karayaa inaad rewiring ku samayso ama dib maaragtay aad u qaabayso dib aad ereyadii aad intaad u bedesho naftaada aad u aaminsiiso ereyo kale oo ku liddi ah ereyada negative-ka ah imanaya siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu samayn karayo waxa weeye qalin warqad inaad qaadato journal inaad samayso markastoo aad dareemayso si negative aad u fikirayso markastoo aad xaalad ku jirto markastoo mari qaarkood maba ahee xaaladaha sida caadiga daily si maalinla ah u fariiso aroortii markaad soo kacdo qalin warqad qaado qor wixii fikradda maskaxdaada ku soo dhaca ha ka fikirin ereyada ha ka fikirin grammarka ha ka fikirin maaragtay jumladu sidoo dhisayin waxba ha ka fikirin just qor wax kastoo kuu soo dhaca qor laba faa'iido way leedahay midda hore waa labeling waxay yidhahdaa inaad magacaawdo ma magacaabi karaysid fikrad kugu soo noqonayso oo aadan arkaynin oo aadan garanaynin oo fikrado fara badan ay ku dhex qasan yihiin laakiin markaad qorto waxaad oran karaysaa oh I see a pattern baan ujeedaa fikraddan way soo noqonaysaa magac baad u samayn karaysaa talabaadna waxa weeye distance in adiga iyo fikradahan markaad qorto adiga iyo fikradahan distance baa idin dhexeeya fakaag iyo gaab baa idin dhexeeya halka marka kale ay maskaxdaada ku jiraan dee qayb ka mid ah una yihiin marka labada faa'iido way leedahay inaad qorto oo si fikradahaasi kuwa liddi aad ula timaado talabaad waxa waa maxay qodobka labaad inaad challenge garayso fikradaha laftooda challenge garan baa u baahantay waa rewiring kalku ka dhacayo in maskaxdaada dib aad u program garayso reprogramming aad ugu samayso مثلا waxa waa ku xumahay baatay waxa waa ku liitaa fikrada ku soo noqoto waa ta negative-ka waad qortay inay ku soo noqoto dartay mid liidiyaad ku sameynaysaa waxaan ku jiraa facekii barashada ustaadan saaxiibana aad u isticmaalaa waxaan ku jirnaa facekii ama wejigii barashada noloshu waa seasons ya marka qofku wuxuu ku jiraa xilli uu wax baranayo xilli maaragtay waxa aanu ogeyn waqti uu og yahay deetana uu wixii tijaabinayo uu kaca kufayo waqti wixii uu kasii fiican yahay oo uu si wanaagsan u samayn karo skillkii uu bartay iyo waqti dee calaatuul wax walba yihiin marka waxaad oran karaysaa no waqtigii barashadaan ku jira hadda waxa way igu cusub yihiin waa tijaabinaya okay public speaking baad ka baqaysaa meesha dhireed public speaking kuma wanaagsan waxaad leedahay oh no waan ku cusbaa weli maan samayn waa tijaabinaya maxay ahayd maadaama aan ku cusbahay maalintayda saddexaad iyo maalintayda soddonaad isku mid ma noqonayso
isbedel baa dhacaya wahakada akhriska qoraalka waxqabadka jiimka you name it salaada salaatuleylka wax kastoo kugu cusub waxa weeye wadadaasaad maraysa naftaada marka waxaad samaynaysaa meeshaad tiri waxaan waa ku liitaa waa ku xumahay oppositekiisa oo positive ah ayaad keenaysaa qodobka waa challenge ilaan challenge gareeyo fikradda marka aad qorto aad aragto inay negative tahay soona noqonayso waad challenge garaynaysaa waa fikrad kastoo kugu soo dhacaysa maaha dee fikrad saxa maaha waad weydiinaysaa waxaad naftaada weydiinaysaa waxaad leedahay fikraddan horta waa fikrad saxa maxaa ka runa maxaa ka dhaba haddaadan qorin ma arki karaysid haddaad aragto inay been tahay oo ay fikrad kugu soo noqonaysana ay tahay liddigeeda oo positive aad keenaysaa arrinta saddexaad qodobka saddexaad I think runtii isna muhiimka ah waxa weeye inuu qofku caadaystaba uu caado ka dhigto waxa weeye waxa la yidhahdo affirmationka iyo gratitude-ka mahadnaqa iyo shukriga iyo waxaana yidhahdaan self affirmationku berigii hore 12 sano kahor aad baan ula yaabi jiray waxaan macno badan sameynayn buu runtii ila ekaan jiray laakiin maanta daraasaadku thousands oo daraasada maanta laga sameeyey saamaynta ay leedahay self affirmation haddii nafteennaba nafla hadalkeenu uu ka badan yahay dadka intaan la hadleen waxa nafteena aan kula hadlayna 80% ay tahay negative why not aan u abuuri la'nahay erayo fara badan oo positive oo kullidi ah erayada waxa negative ka ah ee nafteena kula hadleen why not u oran kareynin anigu naftayda waxaan ahay qof waxa awood u la samayn kara meesha leedahay naf ma kuma fiicin dadka sida loola hadlo ma tiraadid dadka sida loola hadlo bilow baan ku ay laakiin waan ku fiicnaan karaya waxyaaba cajiibka wax kamid ah dadku waxaan ahay xisaabta aadka ugu liitaan ayaan ahaan jiray macallin markaan Mareykanka yimid ayaa macallimiinta kamid ah oo xisaabta ii dhigay ayaa wuxuu yiri dabcan maalinka ugu horeysay la baranayay maadaama aan bari waxaan ahay dadka perfectionist-ka marka hordhac baan ka sii dhigtay qofka naftaada ka hadal marka waxaan ku soo daray inaan xisaabtana ku liito waxyaabaan xisaabtan u qaadanaya xisaabtana aan ku liito dadana macallinku wuxuu yiri ma uu oran sidaa ha oranine sidaa dhex ima oran wuxuu yiri kaasina wuxuu ahaa mubaarag oo yiri xisaabta haddii aan fahmo oo ku fiicnaada waa opposite-keedu moogta wax dheeraada kuma darin xisaabta waan ku liitaa iyo haddaan idhaahdo xisaabta haddii aan fahmo waa ku fiicnaada dabcan haddaadan fahmin dee waad ku liidanaysaa of course sama ma jira waxyaabo yaroo leerbed in qofku garanayo uu yara bedelayo oo positive ah yes way jiraan dad fara badan qof isku filan baan ahay qof waxaa samayn karaan ahay millionaire baan ahay aamin iska dhaadhici yes wax waliba runtii waxa jira dee wax kastoo dadka loo sheego waxaa jira qayb quluwi fara badan ku jiro iyo xagjirnimo iyo kabadbadin iyo buunin fara badan ay ku jirta laakiin self affirmationku aad u muhiim yahay adoon ma ogtahay adkaartan had iyo jeer aan ku soo celinayno ilaahay noo tilmaamayo inay mutma'inna alqulub inay qalbiga ay qaboojinayso ay dejinayso inta la inagu soo celinayo don't you know it's a self affirmation inay affirmation tahay ma ogtahay maxay ku tahay matalan alxamdulilah marka allah alxamdulilah oo aad suuraysanayso ishorkeynayso ilaahay nicamka faraha badan uu ku siiyey أوليه الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أوليه مركز الصحر نكسو الحمد لله وحمد نيستا الحمد لله كنوانا نيستا الحمد لله كنوانا الحمد لله يعني إلهي بعد نيستا الحمد لله واري ما تقول على بعد نيستا الحمد لله إن الله الحمد لله أود بالله الحمد لله وحبات فان سنتا الحمد لله وحبات دقيسن كرس الحمد لله أنت رد بعد نيستا وجد affirmation ويا أنت بدنا واحد لهذا درين أما thought negative هي thought positive فكرة negative أو طبعا هي فكرة توجن مسكحنا مركم موضوع كل مكريان مركزتو مركعات thought كا positive كا كسر العلنيس الحمد النقعة كنتي واحد negative مش مسؤولية disruption بعد ما حد قصة ما نسمع دوي حيوان وليه على مدى مسمات كوليه هي self talk جنوام حي repetitive واللوب ما ركتم حلو كده قالب صنع ونقص same وضع بمران marka adkaartan aynu akhrinayno waxay ku sameynaysaa disruption waxay qasaysaa oo qalalaasa gelinaysaa fikradihii dawaaliga u socday ee negative ka ah ee tabna ay jirinaysaa waxa kamid ah mesela allah akbar marka leedahay allah akbar dadku inta badan waxay haystaan ilaahay baa weyn
الله أكبر إلهي بأوين ما الله أكبر وحوي إلهي بكوين وحلبة إلهي بأوين الله كبير لكن الله أكبر إلهي بكوين وحلبة إلهي بكوين مشكلات كويسة إلهي بكوين معركة وحكستو أتكبر قيس أو كوريا إلهي بكوين it's affirmation imagine يعني self affirmation كم حيسا ما ينقفك وحيسيا encouragement معنا دي أريد positive كا أريد negative كا نفتي أنا كل هذا الله كوا positive كا وحين سيان ديرجلين هي حماسة يجديدو ورجو كوا كلام حين سمعنا سيان نقدن يبقدن ينفشكل أي نجليان الله أكبر ويجديدو الله أكبر وديرجلين الله أكبر يعني وحول حارك صمات كوجت إلهي بكوين إلهي بكوين إذا مركا self affirmation أما هالنقطة الأذكار فرح بدنا إنه آخرنا هذا يجي كسر إنه تجوكتي سان نقطة أما هالنقطة إن نفترض أورن كرس وحوا كون أكسنه وفحنا هاي ستريس كم بعدين كريه وفحنا هاي وحن كو أذك هدي وفهمه كون أكسنه كريه وحنا يقف it depends أدي وحالك كايس تكو عرضه ما وأنا أركع مرة فربنا فيديو يوف فربنا ولا كنت طلع أبوره ميوزك ير حاجة دم باك جراوند الغراعيو وقف كل اللي هي كون دقيسو إسكت دقيسو ربنا سامعين مره أديك عقبات كذا يقف كان كلام فيديو مثلا عقبات كيسة affirmation كأوبا هي كل الدقة عقبات كان حيستا ويكتبوا يكو أديك كويس أديك مالها وحي ماشي كمان أنا سماح حاجة مركز قرط جون اللي مركز سمايسو بعدين ليس حالك النيجاتيف ثوتس كان يتبغى لك إيمان يعني مقعياد وسمعنيسا واتقرنيسا بارن باكو صباحية كوا لدي جودا أي واحد كو سمعنيسا affirmation أريو أي كم دينا نروح حمام ونكون في عناي كان هدان فهمه وان كسر بحا قف دبر عدق بانهاي قف شقديس ان كدالين بانهاي يا قف waxaan adu barto fahmo u leebanahay ereyada faraha badan ee positive ka runtii xukuusinaya yidiilo iyo dhiirigelin iyo xamaasad aad ku wajihi karayso nolosha disruption waxay ku sameeyaan fikradii negative ka ee kugu soo noqonaya insha Allah muuqaalkan soo maybe ka dheer oo ka weyn ayaan markaa sameyn doonaa hadii Ilaahay yiraahdo inaasan rabin inaad la wadaago maanta خيرات فربنا ما يرجينا انت ما كنت قاعد تسمع قولي وولي وحلا خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.